maadaama oo aynu ku jirno toddobaadkii haweenka waa lama huraan inaan isxasuusino qaar kamid haweenkii dunidani waxtarka badan ku soo kordhiyay sidoo kalena saameynta weyn ku yeeshay isbedelada dunida sidaan wada ognahay haweenku waa asaaska nolosha aadamaha waxay dunida ugu jiraan doorka ugu muhiimsan waxayna ka hayaan shaqada ugu weyn oo ah tan hooyanimo sidoo kale haweenku waa tiirka isku haya bulshada oo haddii booska baneeyaan burbur xooggan wuxuu soo gaarayaa bulshada diinteena islaamku waxay dhiirigelisaa waxbarashada iyo waxqabsiga nololeed ee haweenka door weyn ayay ka ciyaari jireen xilligii dahabiga ee islaamka casrigii nabiga calayhi salaam kii saxaabada iyo kii taabiciyiinta intaba hase yeeshee markii xadaaradda islaamku hoos u dhacday waxaa hoos u dhac xoogani ku yimid dhinacyo badan oo nolosha islaamka oo ay ku jirto horumarkii haweenka iyo ilaalinta xuquuqdooda kadib xadaaradii reer galbeedka ayaa soo ifbaxday iyagoo ka faa'iideystay hoos u dhicii xadaaradii islaamka waxaanay bilaabeen inay kor u qaadaan xorriyadda iyo ixtiraamka nolosha aadamaha oo ay ugu mudan tahay tan haweenku taasoo ugu dambeyn horseeday inay soo baxaan dumar badan oo contribution fiican ku sameeyay nolosha dhaqan-dhaqaale ee socio-economic qaar kamida dadkaasi haddii aan kusoo qaadano barnaamijkeenana waxaa kamid ah Josephine Garis waxay u dhalatay wadanka Mareykanka waa mid kamid ah haweenka dunida waxtarka weyn ku soo kordhiyay waxay sameysay dishwash oo ah mashiin lagu dhaqo alaabaha kadibna waxay furatay company weyn oo dishwashiskaasi lagu iibiyo waxay ka faa'iiday lacag badan waliba lacag kaliya ma aanay faa'iidine waxay faa'iiday sumcad iyo magac dunida oo dhan loogu ixtiraamo ilaa iyo maanta waxay ku guuleysatay abaalmarinta caanka ee laga bixiyo dalka Mareykanka ee ay bixiso National Inventories Hall of Fame waxaa la guddoonsiiyay 2006 iyadoo oo dhimatay 1913 taasi oo ka dhigan in waxqabadkeedu sabab u noqday in iyadoo oo dhimatay wali la xuso oo la xasuusto lana abaalmariyo Mary Anderson waxay liftay mashiinka loo yaqaano windshield wiper haweeneydan iyaduna waxay u dhalatay dalka Mareykanka waxay hal-abuurkeedani ku mutaysatay abaalmarinta National Inventories Hall of Fame ee dowladdaasi Mareykanku bixiso waxayna adduunka oo dhan ka kasbatay sumcad weyn maadaama ay dabooshay baahi dunida oo dhan wada qabtay gabadhani waxay aragtay dhibaato weyn oo haysata baabuurleyda gaar ahaan xilliyada ay cimiladu xun tahay waxay mari jireen rafaad fara badan kadibna waxay hindistay bal inay xal u heli karto arintani baabuurleydu waxay sameyn jireen xilliyada ay cimiladu xun tahay inay wadada dhexdeeda baabuurta ka degaan kadibna ayagu isku dayeen muraayadooda ayagu gacantooda ku masaxaan kadib intii aanay soo saarin qalabkan isagu masaxaya baabuurka ee xilliyada roobka iyo xilliyada dabaylaha xun jiraanba oo maad aragtay gaadhigu ku safri karo Stephanie Kwalek waa hal-abuuraha maandada Kevlar oo ah maando loo isticmaalo in ka badan 200 different applications kuwaasoo ay ku jiraan taleefanada qaybo kamid ah qalabka diyaaradaha jaakeedada xabada celisa koofiyadaha xabada celiya xarkaha internetada iyo sidoo kale application fara badan Stephanie waxay baratay cilmiga chemistry-ga waxayna la shaqeyn jirtay shirkad la yiraahdo D-Point haddaba hal-abuurkeedani kadib waxay ku guuleysatay Chemical Pioneer Award abaalmarin ay bixiso American Institute sidoo kale waxay noqotay gabadha kaliya ee heshay abaalmarinta uu company-gaasi bixiyo aqoonteedii waxay gabadhan uga faa'iideysay adduunka oo dhan hal-abuurkeedina waxa uu badbaadiyay malaayiin qof gaar ahaan xilliyada masiibooyinka dagaal ay jiraan Marian Donovan kadib markii ay aragtay dhibaatooyinka hooyooyinka ay ka wajahaan korsiinta ubadkooda gaar ahaan nadaafadda sida nadiifinta saxarada ilmaha taasi oo hooyooyin badan waqti badan ka gali jiray dumar badanna ay go'aan uga qaateenba inay ilmo dhalaan arintaasi darteed ayaa waxay ku fikirtay inay xal u raadiso dhibaatadani ugu dambeynna waxay soo saartay xafaayada caruurta oo maanta dhammaan hooyooyinka caalamka ku nasteen kana mid noqotay basic needs ka qoys walba haweenka aan soo xusay iyo kuwa kale oo badan ayaa waxay aqoontoodii iyo maskaxdoodii uga faa'iideeyeen dunida iyagoo xaliyay dhibaatooyin waaweyn oo dunida ka jiray si kastaba ha ahaatee waxaa weli jira caqabado badan oo dumarka ka hortaagan horumarka ay higsanayaan maadaama oo weli resource-ka caalamku uu gacanta ugu jiro ragga shirkadaha ugu waaweyn ee maanta dunida ka jirana ay mulkiyadeeda leeyihiin raggu sidoo kale dhinaca hoggaanka isna waxa weli loogu awood sheegtaa dumarka oo raggu way kaga badan yihiin dumarka haddana dumarku waxay wadaan dadaalo fara badan dunida inteeda badanna waxay ka heleen xorriyadda ay u halgamayeen sanado badan waxaanay gaadheen guulo waaweyn
guulahaasi oo dhan iyadoo ay jiraan ayaa waxa ayna la isdiidsiin karin in haween badan oo hansare lahaa ay himiladoodii ka qoosteen dhibaatooyinka ay ka gudbi kari waayeen awgeed. haddaba daawade, adiga maxay kula tahay caqabadaha ugu waaweyn ee kala hortaagan haweenka iyo higsigooda?